daawadayaal ku soo dhawaada documentary film aan idinka diyaarinay 20 guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay dugsiyada Umar bin Khattab ee magaaladani Booramo oo kamid ah dugsiyada dhanka tayada waxbarashada ugu horeeya guud ahaanba gobolka Awdal isla markaana door muhiim ah ka qaatay horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee guud ahaanba gobolkan Awdal kaasi oo soo saaray arday tiro badan kuwaasi oo waqti xaadirkani qayb ka ah hal doorka bulshada ku nool guud ahaanba deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal inta uu socdo documentary filmkani waxaan ku soo bandhigi doonaa taariikhda dugsiyada Umar bin Khattab waqtiyadii la aasaasay ilaa haatan waxyaabihii uu qabsoomay iyo sidoo kale taariikhda faca weyn ee dugsigaasi ee maanta 20 jirsaday dulcida munaasabadani waxa weeyaan laba arimood bay iskugu jirtaa koowaad waxa weeyaan inaynu xusno oo aynu weyneyno oo aynu ka sheekeyno taariikhdii asxaabigeennii weynaa radiyallahu anhu ee Umar bin Khattab ee aynu ku suntannahay magaciisa haddaynu nahay dugsiyada Umar bin Khattab talabaadna waxa weeyaan 20 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii dugsiga Umar bin Khattab hadlaya magaca maamulka macallimiinta ardayda dugsiyada Umar bin Khattab waxaan markaa halkan uga mahadnaqa rabbi kadib marti sharafta qiimaha badan leh ee nagala soo qayb gashay xafladan oo uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sheekh Cilmi Naxwe oo culimada waaweyn ee magaalada ah isla markaana bara jaamacadeed oo sare macallimiinta sharafta badan ee Umar bin Khattab dugsiyada hoose iyo dhexe iyo sare wax ka dhigta iyo guud ahaan marti sharafta aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu mahadnaqaya waxa kale oo halkan mahadnaq aad uga soo jeedinaya ardayda dugsiga hore uga baxday ee sida qiimaha badan leh uga sheekeysay asxaabiga aynu nisba sheeganayno magaciisa hayno ee Umar bin Khattab radiyallahu anhu ilaahay ka raali noqde run ahaantii bahda Umar bin Khattab hadaynu nahay waxa faan inoogu filan in asxaabiga qiimaha leh aynu markaa magaciisa la inoogu magac daray haddii markaa aan isyar dul taago bilowgii taariikhda dugsiyada Umar bin Khattab waxaan markii ugu horeysay bilownay waqtigii dagaaladii sokeeye laga soo doogsanayay waa bilowgii 9aadkii run ahaantii waqtigaa waxaan ku bilownay waxbarashada dadban waxaan markaa ka bilownay hal fasal iyo 2 macallin iyo tiro arday ah oo aad iyo aad u yar sanadku markuu ahaa 1999kii ayaa dugsiga si rasmi ah loo diiwaangeliyay oo uu ka mid noqday dugsiyada hoos yimaada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee laga soo bilaabo waqtigaasi dugsiga waxa ka hor yimid bilowgii caqabado aad u tiro badan waxaan ka xusi karaa caqabadii xagga fasal yaraanta fasalada waxbarasho oo waqtiga aad iyo aad noogu yaraa waxaan xasuustaa mararka qaarkood inaan sameyn jirnay waxa la yiraahdo multi grade classes galaasyada heerarka kala sareeya oo tusaale ahaan fasalka afraad iyo fasalka shanaad ayaa waxaan ku wada dhigi jirnay hal qol ayaan ku wada dhigi jirnay sabuurad kaliyata ayaan ardayda u kala jeexi jirnay oo ay wadaagi jireen waxa kale oo caqabadihii waqtigaasi naga hor yimid ahaa agabka waxbarashada ee saacida waxbarashada ay ka mid yihiin kuraasida miisaska sabuuradaha xataa tabaashiirta ayaa iyagana markaa xaaladoodu ay mid xun ahayd ama aan jirinba waxaanan isticmaali jirnay daasadaha caanuhu ka dhammaadaan iyo jaajuurada sida sawirada xagga dambe ka muuqda iyo markaa dhagaxaan ayaabaan ardayda ku fadhiisin jiray waxa kale oo iyadna caqabadihii waqtigaa naga hor yimid ka mid ahaa manhajka waqtigaa la isticmaalayay oo gebi ahaanba gabaabsi ahaa ama sii shiiqayay sanadba sanadka ka dambeeya saddexdaa caqabadood
ayaa ahaa markaa caqabadihii ugu waaweynaa ee wakhtigaa la hortaagnaa iyadoo ay ardayduna maalinba maalinta ka dambaysa ay tiradeedu sii siyaadaysay markii ay arkeen waalidiintu tayada uu iskuulku leeyahay iyo sida ubadkooga loogu hagar baxayo sanadku markuu ahaa 2004 ayaa waxaa ilaahay uu noo suurtogeliyey in dufcaddii ugu horreysay ee dugsiyada Cumar bin Khadaab ka baxday ay markaasi ka baxaan fasalkii koowaad dufcaddii koowaad tiradooduna waxay dhanayd 9 arday hal gabadh iyo 8 wiil laga soo bilaabo muddadaas ilaa laga soo gaarayo 2019 waxa weeyaan sanad dugsiyeedkii hadda aynu ka soo gudubnay waxa dugsiyada dhexe ee Cumar bin Khadaab ka baxay 15 dufcadood oo duuduub ahaan marka la isku geeyo tiradoodu ay dhan tahay 1600 oo arday aanan oran karo boqolkiiba 99.5 waxay ku guuleysteen imtixaankii liifanka oo ay dhammaantood baaskareeyeen sanadku markuu ahaa 2012 ayaa fadliga ilaahay iyo deeqdiisa waxa noo suurto gashay inaan dhidibada u taagno dugsiga sare ee Cumar bin Khadaab ladkii ugu horeeyay waxa uu secondary-ga Cumar bin Khadaab ka baxay sanadku markuu ahaa 2017 laga soo gaaro sanad dugsiyeedkii hadda ina soo dhaafay 2018 waxa ka baxay 3 dufcadood oo iyagana guud ahaan tiradoodu ay noqonayso ilaa 300 oo arday 300 ee ardayna waxaan oran karaa boqolkiiba 100 waxay ku guuleysteen imtixaankii GC-ga ee laga qaaday qaarkoodna waxay waxbarasho dibadeed ka heleen wadamada ay ka mid yihiin Turkiga iyo wadamadeena kale ee dariskeena run ahaantii dugsiga Cumar bin Khadaab hadda waxa uu ka mid yahay dugsiyada ugu caansan magaaladeenan iyo guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland hamiga iyo hiigsiga aan leenahay ka maamul ahaan iyo ka macallimiin ahaanba ma aha inaan samayno lacag ma aha inaan markaa guryo dhaadheer samayno laakiin hamiga noogu weynaan habeenkii ku seexano subaxiina ku soo toosnay waxa weeyaan sidii aan u soo saari lahayn arday akhlaaq leh oo ka dhisan xagga markaa diinta iyo xagga maadigaba waxaan ugu dambeyntii rabaa inaan halkan uga mahad celiyo in cid kasti oo markaa hal maalin ka qayb qaadatay horumarka ballaaran ee dugsiga Cumar bin Khadaab uu sameeyay aanu nidhaahno jazaakumullahu khayral jazaa maxaa yeelay al-insaanu madaniyu bidabcihi insaanku waxa weeyaan waa madani dabeecad ahaan kamana maarmo cid kale inuu kaashado marka waxaan leenahay ciddii maalin markaa horumarkaas nagala qayb qaadatay jazaakumullahu khayral jazaa wa billaahi tawfiiq